gaadiidka dhulka badda iyo dekedaha dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya ayaa waxa shir gudoominayay agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka cirka iyo dhulka mudane Maxamed Cusmaan Cali Dhagaxtuur kulanka maanta ayaa waxa ka qayb galay wasaaradda gaadiidka badda iyo dekedaha wasaaradda maaliyadda iyo lacagta wasaaradda arrimaha dibadda hoggaanka nabadgelyada wadooyinka traafikada hoggaanka baarista dambiyada maamulka gobolka Banaadir iyo guddiga iskaashatooyinka gobolka Banaadir ajandayaashii looga hadlay ayaa waxa soo koobaya agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka cirka dhulka badda shirkan inaan ku dhawaaqo go'aanadii la soo saaray go'aanadaas waa la isla qaatay laga bilaabo maanta waqtiga ay ka bilaabanayso laga bilaabo 1 bisha Abriil 2011 ilaa 12 bisha Abriil ayay fursad haystaan cid kasta oo ay xusayso haddii ay tahay darawaliin haddii ay tahay gaadiid laga bilaabo 1 bisha kuna eg 12 bisha Abriil wixii intaas ka dambeeya waxaan u daynaynaa hawsha kana codsanaynaa hay'adaha in ay wax ka qabtaan tallaabana ka qaadaan fuliyana shuruucda maanta go'aankeeda halkan lagu gaaray waxaan mar labaad leeyahay waxaan bixinaa fursadan 1 bisha kuna eg 12 bisha Abriil si loo qaato laysinka iyo taarka iyo buugaagta halkan ku qoran ee qaybta badda waxaan rajaynaynaa iyadoo la ilaalinayo nidaamka u degsan dalka jamhuuriyadda Soomaaliyeed muwaadin kasta ee Soomaaliyeed inuu ugu dhaqmo sida ay u qoran yihiin go'aankana looga gaaray maahan markii ugu horeysay amar noocan oo kala ah ee dawladda ku meel gaarka soo saartay isla markaana uu socon waayo laakiin lama garanayo haatan in amarkan ay dawladdu soo saartay uu hergeli doono Cabdisalaan Sheekh Xasan on Cable TV magaalada Muqdisho.